Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaal meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijka diiradda oo toddobaadkan aan kusoo qaadanayno hay-adda dhulbixinta dowlad goboleedka Soomaaliyeed oo ka mid ah hay-adihii dhowaan lasoo kordhiyey taasi oo hadda bilowday shaqadeeda arrimaha dhulbixinta iyo weliba xalinta khilaafaadka arrimaha dhulalka. toddobaadkan waxa aan diiradda aan ku saari doonaa sida ay dadku u diiwaan gashadaan guryahooda iyo weliba processka ama hanaanka ay maraan. barnaamijkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo Axmed Cabdi Maxamed Axmed Toronto. dowlad goboleedka Jubbaland ayaa dadaal ballaaran u gashay laga soo bilaabo sanadkii 2015 sidii loo heli lahaa hay-ad dawli ah oo maaraysa arrimaha dhulka Jubbaland maadaama arrimaha dhulka ay ahaayeen waxyaabaha ugu dhibka badan oo aan markaa loo haynin xal waara dalkana oo burbursanaa muddo ku dhow 28 sano. dowlad goboleedka Jubbaland oo ka duulaysa sidii wax looga qaban lahaa arrimaha dhulka ayaa waxa golaha wasiirada Jubbaland iyo baarlamaanku ay meel mariyeen sharciga arrimaha dhulka Jubbaland waxaana madaxweynaha Jubbaland 27 Maarso uu magacaabay guddiga maamulka iyo maareynta arrimaha dhulka Jubbaland oo uu gudoomiye u yahay madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan. waxaana guddigan uu ka koobnaa ilaa 6 wasaaradood oo ay ka mid ahaayeen wasaaradda madaxtooyada, wasaaradda arrimaha gudaha, wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta, wasaaradda warfaafinta, wasaaradda garsoorka iyo cadaaladda iyo wasaaradda maaliyadda. guddigan oo bixiyay juhdi ballaaran oo looga goleeyahay hirgelinta hay-adda maamulka iyo maareynta dhulka Jubbaland iyo sidii dadka shacabka ee Soomaaliyeed ee ku dhaqan Jubbaland ay uga gudbi lahaayeen caqabadaha dhinaca dhulka. waxa ay dhiseen bishii 8 ee sanadkii aan soo dhaafnay ee 2018 guddiga dhulbixinta iyo guddiga xalinta khilaafaadka iyadoo guddiyadaasi ay shaqo bilaabeen 7 bishii Oktoobar ee sanadkii tagay. dadku waxa ay hadda bilaabeen inay diiwaan geliyaan guryahooda iyadoo hay-adda dhulku ay qofka u cabirayso dhulkiisa oo loo xaqiijinayo cabirka dhulkiisa iyo meesha uu ku yaalo. Abuukar Maxamed Yuusuf waa muwaadin Soomaaliyeed oo ku nool magaalada Kismaayo. waxa uu imaaday xafiiska diiwaangelinta ee hay-adda dhulka Jubbaland oo ku dhex yaala degmada Kismaayo. waxa uu doonayaa in loo diiwaan geliyo guri leh sabarloogadii dowladda dhexe ee Soomaaliya oo uu 1,000 shilin oo lacag Soomaaliya uu ku iibsaday sanadkii 1978 waxaana gurigaasi uu ku yaalaa xaafadda Calaley waaxda Madiina. halka waxaan u imi inaan dhulkayga sharciyeysto oo aan ka sharciyeeyo hay-adda dhulbixinta Jubbaland sharcigaas oo ah in aan helo sabralooga xaqa ayaan doonayaa aan meeshaan aan u imi. Abuukar waxa uu hadda qaadanayaa foomka codsiga ee ah in uu rabo in loo diiwaan geliyo gurigiisa oo ku yaala xaafadda Calaley waxaana bixinayaa $7 oo ah codsiga foomka. Abuukar waxa hadda loo dirayaa bangiga sida uu bixiyo lacagta diiwaan gelinta guriga oo uu rabo in loo sharciyeeyo waxaana hadda u dhaqaaqayaa dhinaca bangiga. Abuukar waxa uu hadda dib ugu soo laabtay xafiiskii u diray bangiga waxa uuna geynayaa warqadii uu ku soo bixiyay lacagta diiwaan gelinta si loogu gudbiyo guddiga dhulbixinta ee hay-adda dhulka Jubbaland. Abuukar waxaad u timid xafiiskan
sharciyeynta dhulka degmada Kismaayo maamul goboleedka Jubbaland in lagu sharciyeeyo dhulka xogtiisu ay halkan ku jirtay halkan aanu ka akhrinay soo sida ma aha waxaan rabaa dhulkaas xageeba ku yaala calanay waxa Madiino soonka labaad ku yaala Madiina Tuuway wuxuu ku yaala xaafadda calanley waaxda Madiino oo Madiina Tuuwa agagaarka masaajidka Xamsa dhulkaas ma dawladii dhaxaa ku siisay ma beecbu kugu soo galay ma basiibo ahaa waad iska xaadxaaratay ma aabaha baad ka dhaxashay qaabka uu dhulkaasi kugu soo galay noo sheeg qaabka uu dhulkaasi kugu soo galay waxa weeye dawladii Maxamed Siyaad Barre ayaa siisay waa mahadsan tahay dokumentigii ama sabarloogadii dhulkaas lagu siiyay ma haysaa waa iga dhuntay sabarloogadaas way ka luntay dhulka cabirkiisu waa imisa waa 20 waa hagaag dhulkaasi ma dhisan yahay mise uu bannaan yahay waa dhisan yahay mid qol oo magaca iyo deegtoodii oo qorqoro oo wareegsan dhulkaasi goonyihiisa ama hareerihiisu miyay bannaan yihiin mise waxa way daris buu leeyahay daris buu leeyahay dawladdu bixisay inta kale dhinacyada kalena waxay iga xigaa dadkii daris leeyahay maadaama uu dokumentigii ama sabarloogadii dawladdu ay dhulka kugu mulki siisay ay ka luntay sidaad noo sheegtay ma xasuusataa xilligii sabarloogada la gooyay sabarloogada waxa la gooyay 1978 waxa la gooyay 1978 haddaba maadaama uu dhulkii dawladda dhexe ay bixisay oo ahaa sabarloogana aad ku mulkiday asi ay sabarloogadii ka luntay si aan ugu xaqiijino dhulka inaad adigu leedahay waxaanu kaaga baahanahay laba qof oo darisa afarta jiho ee gurigaagu u leeyahay laba kamida inay ku marxaati kacaan oo kaaga marxaati kacaan guriga inaad adigu leedahay dawladii dhaxana ay ku siisay iyaguna ay daris kula yihiin labada qof baanu ka rabnaa hadii dhulku uu beec kugu soo gali lahaa waxaanu ku diri lahayn qofkii aad ka gaday laba qof oo marxaatiyaalkii goobjooga ka ahaa beecaas iyo laba qof oo darisa hadduu dhulku hiba uu yahay ama uu dhaxal yahayna fayl lambarka hadda aad wadato mid ka duwan baad qaadan lahayd dadka hadda aanu ku diraynana qaar kamida laguma direen marka insha Allah maadaama dhulku uu yahay dhul ay dawladii dhexe ku siisay oo sabarlooga aad ku mulkiday waxaanu ka rabnaa laba qof oo darisa ma wada ma saheli kartaa waa helay waa diyaar waa hal soo gali dadka hadda waxaa loo yeedhay markhaatiyada abuukar oo ah laba qof oo mid dumar tahay si guddigu ay u xaqiijiyaan in gurigaas uu leeyahay iyo in cid kale ay leedahay Ciise Muuse walaal soo dhawow goobtan waa goobtii sharciyeynta dhulka degmada Kismaayo waa xafiiska sharciyeynta dhulka ee degmada Kismaayo wadna soo booqatay saaka annaguna waan ku soo dhaweynaynaa waxaad la socotaa xaaji Abuukar Sooma waxaad la socotay madaris baad la tahay ma dhulka uu rabo inuu sharciyeystaad ka iibisay daris baad la tahay waa hagaag dhulka darisnimada maada ku horeeyay mise xaaji Abuukar baa ku horeeyay wallahi muddo waan wada deganay laakiin isku waayada haydeen dhulka ma dawladda xaaji Abuukar iyo adiga ba idin siisay ma obasiibo ahaa waad xaadxaarateen ma beec buu ku soo galay xaaji Abuukar seed ku mulkiseen ma beec loo shaqeeyay waa hagaag
maadaama ay marka dhulkaasi ay dawladda dhaxaydi siisay iska aad la tahay darisnimada maadaa ku horeeyay mise asaga ku horeeyay taa macnaheedu waxa weeye ma hortaabu dhulka yeeshay maadiga hortii lahaa oo meesha adoo degan buu ula soo darsay ma isku mar baa la idin siiyay adaa ku horeeyay kadib baa la siiyay isaga oo loo sharciyay dhulka Xaaji Abuukar oo raba in loo sharciyeeyo ee mulkiyadiisa uu saaka rabo in si toos ah loogu sharciyeeyo cabirkiisu waa imisa waa 25 dhulkaas Xaaji Abuukar intii aad dariska la ahayd maadaama uu adigu aad meesha uga soo horeysay wax dada oo ku haysta iyo wax khilaaf oo dhulka ka jira inaba haba yaraatee ma aragtay maadan arag waxaad sugaysaa dhulka inuu Xaaji Abuukar leeyahay halkan kitaab baa noo yaala dadka dariska iyo dadka markhaatiyaalka ee inta badan dhulka markii la kala gato goobjooga ka labadaba si aanu u xaqiijino qofkaas lahaanshihiisa iyo ayagu waxa ay sheegayaan in micni waxa uu yahay war dhab ah oo aanu maanta dukumeenti aanu ku bixin karno waxaan noo degsan inaanu dadka dhaarino ma ku dhaaran kartaa oo kitaab ma ku mari kartaa inuu Xaaji Abuukar dhulka leeyahay oo dawladdu ay siisay waad ku dhaaran kartaa insha Allah waad noo dhaarsan tahay markii la wareystay Abuukar iyo markhaatiyadiisii waa ay ballamiyeen guddiga dhulbixintu waxayna sheegeen in ay soo wacayaan 2 maalin kadib wada siiyayna ay kaaga markhaati kaceen anagoo waliba micni waxa way dhaarinay in dhulka adigu aad leedahay cidina ayaan kugu haysanin insha Allah saacada laga bilaabo xafiiskan waan ka gudbinaynaa haduu ee beedmo dhulkaaga waxaanan u gudbin doonaa survey waa lagu soo wacaya haduu Ilaahay yiraahdo hadda waxa ku soo dhici doona markaan systemka sida u galino xogtan message ba ku soo dhici doona message-ka ha ku soo noqonin toos baan ku soo wacaynaa haduu Ilaahay yiraahdo waxaan ku leenahay saacad hebel iyo maalin hebel ku diyaar garow micni waxa way gurigaaga survey-gi baa insha Allah yaa ku imanaya gurigaaga marka insha Allah GPS baa lagu soo qaadi doonaa wixii xoga oo intan hadda aad nasiisay ku saabsan na waa inaanu meesha ugu tagnaa oo dib uga soo qoranaa dariskana waa inaanu darsiyada kalena waa inaanu insha Allah haduu Ilaahay yiraahdo soo wareysano guriga waa inaanu soo qiimeeyno meesha uu ku yaalo ma wadu ku yaala oo wadu xiray ma meel godo oo noloshu ay ka suura galaynin buu micni waxa way ku jira waxa soo dhan ba insha Allah survey-gu micni waxa uu soo cadeyn doonaa marka halkaas aad insha Allah ku diyaar garoobaysaa waxaan ku faraynaa marka intaanan ku imaanin 2 arimood waa midda koowaad dhulka aad rabto ama gurigaagu afartiisa dhinac cabirka aad noo sheegtay waa inuu calaamadeysan yahay ama uu micni waxa uu leeyahay soodimihiisu calaamad rasmi ah oo la raaci karo meel banaan oo iska banaan oo halkan ay ahayd iyo halkan ay soodinteeda ahayd iyo micni waxa way arinta ayada maarta waxa weeye waxba kuma qaadno qofku waa in dhulkiisa uu micni waxa weeye xafitaa oo ay uu cayiman yahay qodobka labaad xafiiskan markaad ka baxdo waxa suuragal ah in dad iska yaacdaya oo micni waxa weeye ay ku yimaadaan ama bay ku yiraahdaan waxbaanu kula fududeynayna ama bay micni ku yiraahdaan maarta waxa weeye waxaan loo soo diray dhulka inaanu ilaalino systemka hadda aad soo martay oo ah inaad xafiiska registration ka timid in halka micni bangi lagaaga diray in bangi aad lacag ku soo shubtay in receipt lagu soo siiyay inaad anaga noo timid in survey lagu diray systemka aad martay baad mari doontaa wixii dhiman oo lacagana systemka baad ku bixin doontaa wax lacag oo marka aad banaanka ku bixin karto iyo cid gaara title-kay doontaba ha wadatee oo aad micni waxa weeye la tacaamuli karta ama taleefankaaga aad siin karto ama hawshan ayada kala hadli karta inaba haba yaraatee micni waxa weeye ma jirto insha Allah haddana survey-gi u diyaar garow anaga ku soo wacayna waad mahadsantahay guddiga
dhulbixintu waxaa 2 maalin kadib ay soo waceen Abuukar waxaana lagu wargeliyay in guddiga ay maanta imaanayaan gurigiisa oo loo soo dirayo dad soo xaqiijiyay goobta uu gurigiisu ku yaalo dadka dariska la ah iyo waliba guriga inuu isaga leeyahay oo dadka dariska ah ay u yaqaanaan. saddexan hooyo daahir Ibraahim Abdurrahman xaafadan Calanley Madiina degan tahay gurigan dhanka koonfureed ka xigiyaad u taqaanaa xirsiyan oo aqaana waan gartay kaas inay leedahay gurigan kolley ani waa degan ayada kirada iga qaadi jirtay guriga waa arki jiray markaan degayna ayada iga kiraysatay ayada oo aqaana xirsiyan labadii nin ku soo horeeyay darisnimada ana ku soo horeeyay maamada waxay ku tiray guriga anaba kiraan u deganaan jiray ku tiray xirsiyan asoo dhagax ahaan degay asoo carshaan ana waa arki jiray waad ma santaa xaafada xaggan deganaa waad ma santaa maamo magacaaga oo saddexan daahir Ibraahim Abdurrahman lambarkaaga 5 marka waxaan rabaa inaan ku weydiiyo xirsiyo waxa weeyaan waa xaaska Xaaji Abuukar هذا مركز حرسية لا تقانا كريدة كقاعدة جتة لكن وذات كان حاجة أبوكر واد مقاس لكن أركتي هذا كورسها ما حاجة أبوكر ولا يقانا حفظ ولا يقانا وأنا حاسكي حرسية هذا وما سنته هذا وما سنته أنا هذا دوا سوقنا قريه ما شاء الله أكرر دوا سوقنا قريان واتقانا قريان حاجة أبوكر أسكله حاجة أبوكر أو تقانا أنا كان حرسين أساق بحاسكي سوا واد ما سنته مرة وانا سودك أنا عدكوا هستنا مجرتوا مايا ما مقل ما مقل magacaaga oo saddexan dad wax lagu qabsado magacaaga oo saddexan aniga ma ka salaad faarax ma ka salaad faarax lambarkaaga 8 eber 77 markii la xaqiijiyay in guriga Abuukar uu leeyahay waxa la bilaabay in injineeradu ay bilaabaan cabirka dhulka gurigiisa waxaana Abuukar uu dib ugu laabanayaa xafiiska hay'adda dhulbixinta waxa halkaasi laga siin doonaa warqad kale oo uu ku soo bixinayo lacagta cabirka dhulkiisa waxaana aadayaa mar kale bangiga حسن وحقي لعقتك ku bixinaya lacagta waxa soo bixinaysa bangigii aad markii hore ku soo bixisay 250 ahaa ayaad ku soo bixinaysaa oo bangiga dawladda lacagta meel kale lagu shubayo waxa lagu bixinayaa oo kaliya bangiga dawladda waad maadsantahay waxa uu aaday Abuukar bangiga waxa uu hadda doonayaa inuu soo bixiyo lacagta cabirka isaga oo xafiiska ku soo celinaya warqadda uu ku soo bixiyay lacagta kadibna waxa loo sheegayaa xilliga uu imaanayo warqadda lahaanshaha dhulka iyo midda mulkiyadda guriga حاجة أبوكر محمد يوسف waxaa soo bixisay lacagtii oo bangi ku soo shubtay waxaan hadda ku daabacayaa waraaqdii clearance-ga oo ah ruqsadii aad guriga ku dhisan lahayd iyo inaad wax walba soo bixisay insha Allah marka waraaqda marka ku daabaco waxaad u tagaysaa degmada ayaad u tagaysaa waraaqdan ku siiyo horta marka cabirka dhinac wuxuu ka noqday 22 dhinacna wuxuu ka noqday 25 dhinacna wuxuu ka noqday 20 waxa ka xiga 3 jid ayaa mara oo jid lugeed ah ayaa hareeraha ka mara booskaagina halkaas ku yaala oo ku muuqata haddii aan hadda systemkan hadda cusub wuxuu ku kaydinayaa waa system digital ah wuxuu ku kaydinayaa booskaagi oo kaasoo hadda magaalada aad ka aragto marka aan rabo oon saaro waxa soo baxaya booskaas asalkiisii inuu leeyahay Abuukar Maxamed Yuusuf inuu leeyahay
oo telephone numberkaagina uu ku yaalo taas markaa waxay kuu sahlaysaa inuu dhulkaagu mar walba uu ku xafidan yahay waxa taas kale oo sii wehelisa haddii ruuxan geesaha kaa jira ee aan weli dhulkiisa sharciyeysan marka loo sharciyeynayo uu u soo gudbo 1 mitir hadduu ka soo galo dhulkaaga oo 1 mitir uu ka soo galo ama hal taakaba uu ka soo galo systemku wuu isxirayaa wuxuuna leeyahay waxaa la soo galay dhulkii xaaji abuukar baa la soo galay ayuu leeyahay marka taasna waxay noqonaysaa waardiye rasmi ah oo mar walba adigu aad ogeyn waraaqda madaxda u tagaysaa degmada oo aad fasaxi dhismaha dhulka ayaad ka qaadanaysaa subarloogaagii wax walba way kuu dhammaatay hawshaadii subarloogii iyo milkiyadda marka lagugu yeerayo waxay kugu soo dhacaysaa messageka telefonkaaga ayay kugu soo dhacaysaa halkan aad ku soo noqonaysaa oo aad labadaba ka qaadanaysaa hadduu alla awoodda la ogolaado way xaaji abuukar waa u dhammaaday hanaankii diiwaangelinta gurigiisa haddana waxa uu sugaba waa inuu qaato warqaddii lahaanshaha iyo midii mulkiyadda guriga abaamudan adeer insha Allah waxaaga dhan waa lagu siiyay labadaada xabsooro midna waa milkiyad midna waa sabar looga hadda waa kaas waxa conform ka qaatay khayr Allah insiiyo xasan cabdullaahi cumar xasan karatay waa xogayaha hay'adda dhulka Jubbaland waxaana wareysi siiyay barnaamijka diiradda isagoo oo ka hadlay sida ay hadda u shaqeyso hay'adda dhulka Jubbaland aasaaskii hay'adda dhulka Jubbaland intii ay joogtay iyo waxqabadkii waxyaalo badan bay qabatay runtii oo aad u waaweyn waxaa ka mid ah master plankii oo la dejiyay oo jidadkii iyo qaabkii ay socdaan hadda magaaladii oo lagu wareejiyay ring road oo loo kala qaybiyay magaalada Kismaayo Kismaayadii hore iyo Kismaayada cusub oo loo kala qaybiyay ayadoo la sameeyay laba guddi oo ah guddiga xalinta khilaafaadka iyo guddiga dhulka iyo ayadoo xafiisyo badan oo hay'addu ay leedahay hadda ka howlgalaan magaalada Kismaayo shaqaale aad badan ay joogaan dadkiina ay service bixinayso oo ay u adeegayso oo khidmeynayso runtii waxyaalaha aadka u weyn oo soo yaraaday hadda waa isku haysashadii dhulka ay dadku isku qabsan jireen oo runtii bacdada Soomaaliya ay burbur soo gashay ku dhawaad 28 sano dawlad ayna jirin waxyaalaha ugu waaweyn ee khilaafaadku uu ka dhashana ay tahay arrimaha dhulka dadkii waxay heleen jaha ay ku aadaan oo marka oo khilaaf yimaado ama dhulka la isku qabsado guddiga xalinta khilaafaadka oo ay soo gudbinayaan cabashadooda dacwadooda ay soo dhiganayaan faylashii ay buuxinayaan loo yeeray ayagii guddiga ay la kulmayaan nidaam dawli ah oo runtii process ah oo dadku ayna horay u aqoonin oo meeshii ka bilowday waxyaalaha waxqabadka ayay ka mid tahay taasi waxay keentay in dacwooyinka laftigoodii ay hoos u dhacaan oo dacwooyinka laftigoodii siday waagi hore ahaan jireen ma aha macnaheedu ma aha in dacwo dhan la xaliyay laakiin se dacwadu haddii jaha hesho oo address rasmi ah oo loo aad ay hesho way soo yaraanaysaa vacuumka dadku iyo cabashadooda iyo maartay meelaha markii hore jaha wareer ay iska ahaan jirtay oo meel loo aado oo toos ayna jirin mar hadday jiraan guddi xallin khilaafaad oo iyagu arrimihii galaya oo dhulkii oo xallinaya oo dadkii u kala goynaya waxay isku haysteen runtii waa waxyaalo aad loogu farxo nuur cabdi wahaab maxamed oo ah maareeyaha shirkadda Milestone kana mid ah howlwadeennada hay'adda dhulka Jubbaland ayaa ka warbixiyay baahiyaha ay dabooshay hay'adda dhulka Jubbaland tan iyo markii ay shaqo bilowday inay hoos u dhaceen isqabqabsigii faraha badnaa ee arrimaha dhulka hay'adana ay wax badan oo dhinaca dhulka ah ay xal u heshay runtii mashruuca kan hirgelintiisa horta mudday soo qaadatay
taqriiban intaan xasuusanahay anigu 3 sano way gaartay markii la ansixin doono inta ka horeysay 2005 bay ahayd markii maamulka Jubbaland uu ku fakirayay in master plan loo sameeyo magaalada Kismaayo xilliyada waqti ku dhow ay ahayd markii aan soo bandhignay hindisaha koowaad sida laga rabay Kismaayo noqon kari lahayd muddo waxay dawladda ku qaadatay in ay xal u hesho sidii la isugu keeni lahaa hay'adaha kala duwan ee arrimaha ku shaqada leh 28 sano oo burbur ah oo nidaam darro ah la soo marayna siday u suurtoobi lahayd waxa la isku haleyn karo oo sax in la abuuro marka taas waxa ay mirihii ka soo baxay noqotay 27 bishii March 2018 in madaxweynuhu wareegto ku magacaabo guddiga maamulka iyo maareynta arrimaha dhulka Jubbaland guddigaas oo laga keenay dhammaan wasaaradihii dhulka shaqada ku lahaa ama meel uu ka taabanaysay wasaaradda arrimaha gudaha oo dawladaha hoose ay ku jiraan wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta wasaaradda beeraha wasaaradda maaliyadda wasaaradda garsoorka iyo wasaaradda rafinta iyo madaxtooyada taas la isu keenay golaha wasiiradana waxa markaa chairman u noqday madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Jubbaland mudane Maxamuud Sayid aadan marka waxaan filayaa ilaa 130 taqriiban shir bay galeen runtii juhdi badan baa ka baxo laakiin meel la taaban kara ayay keeneen waxay mirihii noqotay in la dhiso haykalkan hadda lagu shaqeynayo ee hay'adda dhulka Jubbaland oo mas'uuliyaddii dhulka dhan loo dhiibay iyo in ay dawladdu markii ugu horeysay si rasmi ah ay arintaasi ay kula gashay PPP waxa loo yaqaano shirkad private loo leeyahay si ay ugu qaabayso master plan-ka Ermalka milestone taa marka waa hirgashay waxayna timid in dhulkii loo sameeyo qaabkii loo sharciyeyn lahaa shuruucdii hore dawladda ugu dejisay qaabkii loo habeen lahaa ka bilaabato codsiga ugu horeeyo ilaa iyo warqadda ugu dambeysay milkiyadda ah procedure-kii qaabkii loo mari lahaa dhulka lagu heli lahaa waa lagu guuleystay dhammaan aakhirkiina waxaa suurto gashay in ay mashruuc bilaabmo saad og tahayba 28 sano sharci iyo nidaam la raaco oo dhulka ka jiray ma jirin warqadaha lahaanshuhuna sabarloogada loo yaqaana in badan oo kamid ah waxay iska noqdeen kuwa ay fududahay sidii loo samaysan kari lahaa midda labaad dadkii waxay noqotay inay iska degaan meel kasta qofkii waxaa nibay ma jirin hadday jid tahay waa la degi karayay hadday tahay school hadday isbitaal tahay hadday masjid tahay hadday xero ciidan tahay hadday waxay doonto waxa noqoto wax qofka ka reebayo control rasmi ah oo nidaam sharciyeysan oo dhahaya halkan lama ogolo jidka intaas ka soo gali kartaa laguma ogolo oo wixii xakameynaya ma jirin taa waxay sababtay marka in magaalada Kismaayo ay iska ballaarato sida magaalooyinka u ballaarteen ballaarasho aan nidaam ku salaysanayn xogaayar haddaan dib kugu qaado taqriiban waxaan rabaa inaan ku dareensiiyo magaaladan waqtigii 90kii ay dawladdu dhacaysay dhexe ee Soomaaliya dhulka la deganaa oo dhan wuxuu ahaa 6.75 kilometer square wax ka yar 7 kilometer square baa la deganaa maran survey ku sameynay bishii August 2016 taqriiban dhulka la degay waxa uu gaaray markaas 16.2 kilometer square waxa kordhay markaa garan kartaa yani intii burburka lagu jiray waxa kordhay taqriiban 9 kilometer square ayaa kordhay la dhihi karo waa tiro ka badan intii dawladnimada la haystay intay jirtay waxa sababay in dagaalada sukaya sababay waxay noqotay in mujtamac badan markii wadankii lagu kala cararay ee halkan dad u soo degaan survey dambe haddana aan ku sameynay 13 November 2018 oo sanadka tagay ah waa 2 sano taqriiban iyo ila yar gudahood waxay gaartay 24.8 kilometer square inta la degan yahay haddii si kale loo dhigo already waxa kordhay 7.6 wax ku dhow kilometer square baa 2 sano gudahood haddana lagu dhistay magaalada marka sidaas ay u dhismayso ma jirin qaab rasmi ah oo la raaci karayo
nidaamkan sharciyeynta marka hadda intuu yimid waxay noqotay in magaalada dhismaheedii laga joojiyo dadka inay systemka soo maraan loo tilmaamo markay system soo maraanna qofkii isagoo loo cadeeyay inta jidka uu jiraysanayo meesha uu ku yaalo dhismaheeda in loo ogol yahay inuu ku dhisto taqriiban yani wixii tagay waa tageen laakiin bal waxa dambe soconayo in at least wixii laga gaari karayo la nidaamsho jidadkii xaafadaha waa xirmadeen kooweyna waa xirmadeen goobihii hantida guud ama dadweynaha guudkooda dhexaysay kulli waa luntay taas marka waxay keentay in dib u qaabeynta tani ay noqoto in magaaladii dib loogu soo cesho marka wax isbedel ma sameeyeen haddii la yiraahdo waxaan is leeyahay haa way sameeyeen waxay ka sameeyeen awalan dadku hadda inay ku baraarugsan yihiin in sharci u baahan yihiin dhulkiina sharciyeystaan qof walbana wax hadda boos gadan lahaana inta badan hadda ay noqotay inuu iska hubsho booska intuusan gadan ka hor bal inuu jidad ku soo beegan yahay in kale inuu iska hubsho magaaladan jidad baa ugu talagalay iyo qaab loo nidaamsaa jirta dhinaca kalena waxaa xaddi aad u badan hoos ugu dhacay isqaabsigii iyo murunkii tirada badnaa ee dhulka la isku qabsan jiray waxaan u malaynayaa inaan fiicnaan lahayd inaan xusno in loogu talagalay sida guddiyada sida loo dhisay iyo qaabkii loo dhisay guddiyadaasi wax weyn bay ka qaateen inay xasilmato khilaafaadkii dhulka intuu la ekaa marka labada guddiba guddiga xalinta khilaafaadka dhulka iyo guddiga sharciyeynta dhulka qaybta waxaan kugu xusay in taqriiban wareegtada kadib la dhisay madaxweynuhu magacaabay guddiga maamulka maareynta hay-addani waa guddigaas bay matashaa taqriiban waa hay-addaas guddiga matalkiisa magaciisa ku fadhido waxaa loo dhisay marka in la daadajiyo sharciyeynta dhulka heer degmo loo daadajiyo degmo kasta waxaa loo sameeyey 2 guddi oo qaabilsan arrimaha dhulka marka laga reebo qaybta survey-ga ee ayadu survey-ga iyo qaabilsan engineering-ka labada guddi waxa weeyaan guddiga dhul bixinta ama sharciyeynta dhulka guddiga loo yaqaan guddiyadaas waxaa loogu talagalay inay arrimaha dhulka bixintiisa sharciyeyntiisa ayagu ay mas'uul ka noqdaan guddiga kalena waa guddiga loo yaqaan guddiga xalinta khilaafaadka dhulka oo ayaguna mas'uulka dhulka la isku haystay khilaafku ka jiro Jubbaland marka waxaa loo dejiyay in saddexda caasimad goboleed ee Kismaayo, Bu'aale iyo Garbaharey ay yeeshaan min 22 xubnood degmadiiba inta ka soo hartay ee degmooyinka Jubbaland ay yeeshaan 18 xubnood degmadiiba marka labada guddi inay ayagu noqdaan mas'uuliyadda koowaad ee dhulka sharciyeyntiisa ama kala xalinta khilaafaadkiisa inay noqdaan wuxuu dhigayaa sharcigu in ugu yaraan 7 xubnood oo guddiga kamid ah ay isku waafaqaan go'aan kasta oo la qaadanayo مثلا sharciyeynta oo kale ugu yaraan 7 xubnood waa inay ogolaato dhulkaas in la sharciyeyn karayo khilaafaadkuna waa la mid go'aanka markuu soo baxayo ugu yaraan 7 xubnood waa inay go'aankaas isla qaataan qaab dhismeedkaas marka hay-adda loo soo dhisay iyo xafiiskii diiwaangelinta oo asaguna ku garab yaalo oo ah fayl walba oo ay labada guddi galayaan waa inuu soo maraa diiwaangelinta oo qofkii laga xareeyay macluumaadkii isagu wax ku lahaanayay fayl formkii soo xareystay sawiradii soo xareystay telefoonadii soo xareystay ayuu u soo gudbaa guddiyada oo direct si toos ah qofka guddiyada uga tagaayo guddiyada markay ansixiyaan kulay procedure-ka waa laga yaabaa inaad ayaguna ka soo ogaateen wuxuu u soo gudbayaa survey-ga oo ayaguna qaybta engineering-ka ah oo survey ku sameynaya dhulkii soo survey gareynayo survey waxa uu soo saaro ugu weyn waa 3 arrimood awalan dhulka inuu jid ku jiro inuusan ku jirin inay soo kala cadeeyaan ثانيا location-ka uu ku yaalo inay soo cadeeyaan oo ah dhulkaasi meel sharciga ogol in la dago iyo inaysan ahayn soo kala baxdo midda saddexaad oo ah in inta square meter cabirkiis ku fadhiyo oo qeexan oo sax ah iyo dhinacyadiisa oo si sax u cabiran inuu soo saaro marka kadib waxay u gudbaysaa golaha ansixinta golaha la dhaho dhulka marka la ansixinayo oo ah duqa magaalada iyo xogayaha dawladda hoose iyo wakiilka hay'adda dhulka Jubbaland ee heer degmo ah ee ansixinaya kadibna qofkii wuxuu helayaa warqadihii milkiyadda loo yaqaan waa kolley waa tusin doonaa noocooda sida ay tahay aragteen waxaan marka isleeyahay qaabkaas oo ah qaabka hay'adda u shaqeyso
يعني wuxuu dib u soo ceshay systemkii dawliga ahaa iyo nidaamkii dadku ay wax ku sharciyeysan lahaayeen kuna aamin lahayn ku soo noqonay dadka aan isleeyahay ilaa hadda waa sharciyeysteen 480 xoogaa bay gaarayaan 300na leenkii ku soo jiraan oo qaar gudiyadii marayo iyo kuwa saabay marayo iyo kuwa lacag bixintii sugaya iyo waxay isu dhex yeelaan taqriiban dadkaas sharciyada ay qaadanayeen waa sharciga milkiyadda loo yaqaan iyo warqadda dhulbixinta ee heer degmo ah laba warqadood baa jiraya midi warqadda dhulbixinta heer degmo weeye taqriiban midina waa warqadda milkiyadda marka warqadda dhulbixinta heer degmo oo soo aragteen baan filayaa waa warqadaha kan weeye warqadaha kan ayagu waa heer degmo dhulbixinta yani waxa ku taalatan waa degmada Kismaayo degmo kasta waxay bixinaysaa warqadaha dhulbixinta markii procedure ku soo dhamaado procedure wuxuu ka bilaabanayaa diiwaangelinta kadib wuxuu ku soo dhaadhacayaa guddigii sharciyeynta kadib wuxuu u soo gudbayaa surveyga qaybta engineeringka kadib wuxuu haddana ku noqonayaa isla guddigii oo warqada dhameemo 7 xubnood ay saxiixayaan bay soo saaraan wuxuu u gudbayaa qaybta approvalka kulaanshaha dhexe loo yaqaano kadib wuxuu tagayaa qaybta daabicitaanka oo loo daabacayo warqadii dhulbixinta markii tan la daabaco haddana ay saxiixaan kadib uu u gudbayaa qaybta milkiyadda marka mid kasta mid kale ka horeeya waa procedures daba socdo oo qofka haba yaraatee hadduu ka soo boodo mid kan kale uusan arkayn waxa lagu shaqeynayo waa data waana software wax lagu shaqeynayo waa midda warqadda milkiyadda ugu dambeysay ee qofka taqriiban uu qaadan karayo marka waxaan isleeyahay inta haddirtaan qaadatay waa 400 iyo xoogaa qasab sharci kasto hayso sabir looga hor hayso dhulku ha u haysan sharci oo basiiba ha noqdo magaaladan boos kasta oo ku yaalo dawlad ha lahaato shicib ha lahaado shirkad ha lahaato urur samafal ha lahaado waqaf ha ahaado waa in la diiwaan geliyo qasab waa in la diiwaan geliyo boos kasta magaaladan ku yaalo warqadda milkiyadda sida hadda arkaysid مثلا halka hadda number 3 bay ka bilaabataa tani hadday number 2 ka bilaabato meeshaas dhulkaas dhulka dawladdu leedahay weeye Jubbaland dhul kasta dawladdu leedahay koob ka kici doonaa hadday number 2 ka bilaabato meeshaas dhul kasta oo waqaf labo ka kacaya masaajid ha noqoto guri la waqfay ha noqoto madxaf ha noqoto muxuu ahaa isbitaal ha noqdo wax alla wixii waqf lagu baxsho labo ka kacaya hadduu number 3 ka kaco waa dhul shakhsi ama shirkad ay leedahay hadduu 4 ka kaco waa dhul beereed ee dawladdu leedahay hadduu 5 ka kaco waa dhul beereed uu shakhsi leeyahay marka qofka ama sabir looga halahaado ama yuuna lahaanin boos kastoo magaalada ku yaalo ama ka tirsan Jubbaland ka guud ahaan sharciga cusub wuxuu dhigayaa waa in la diiwaan geliyaa oo sharcigan cusub ee milkiyadda la siiyaa lacagaha la bixinayo lacagta hore registration fee-ga ah iyadu waa lacag fixed ah waa $250 weeye lacagaha kale waxay ku xiraanayaan hadba cabirka booska intuu leeyahay dhulka sabarloogada leh ee sabarloogadana sharciga ah deegaan hadduu yahay waa $1 weeye square meterkii hadduu birman boos ama ganacsi yahayna waa $1 weeye dhulka oo basiibada ah iyadu waa $1 weeye square meterkii deegaanka ah hadduu birman boos ama uu yahay ganacsi uu yahayna taqriiban waa $2 weeye dhulka saddexaad waa dhulka dawladdu u fasaxday in dadka loo sharciyeeyo ama loo xalaaleeyo magacii la doono wax loogu yeeray waa xerooyinkii ay dawladdu lahayd ama dhulal ay dawladdu lahayd xilligii dawladda dhexe ee buraysay haatanna aan saalix u ahayn in lagu soo cesho wixii marka hore ay ahayd sida hadda guuladoo kale markaad fiirisid xeradii mariniska ahayd ee Stima Wamo dhinaceeda ahayd iyo dhulal waxaa jirta ay hadda ay adag tahay in dib loogu sameeyo hawshii marka hore ay qaban jireen dadkiina waa degeen weeraan waxaa laga yaabaa dhowr kun oo qof oo Soomaaliyeed baa degan oo muddadii dheereed ee dawladnimada aysan jirin bay degeen in marka dadka laga kacsho oo dhulkii dib loo soo cesho oo ciidankii dib loogu soo cesho iyadoo bartankii magaalada noqotay xogaa culays badan baa ku jiray marka dawladdu waxay ansixisay oo golaha wasiirada iyo golaha baarlamaanka oo maray in dadkii deganaa loo sharciyeeyo loo xalaaleeyo kuwaas marka ayaga waxaa laga dhigay $5 way hadda dabay ahayd discount baa jiray $5 baa hadda laga dhigay
daawadayaal intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii diiradda oo toddobaadkan aan kusoo qaadanay sida ay dadka doonaya inay guryahooda sharciyeystaan isaga diiwaangeliyaan hay-adda dhulka Jubbaland. barnaamijkana waxaa idinla socodsiinayay anigoo Axmed Cabdi Maxamed Axmed Toronto.